inagoo ka faa'iidaysana gudaha Ethiopia ma geli karnaa oo jamaadooda ma dhex geli karnaa haddii aynu dee caqliga ma leenahay isyo ها hadda ka hor baan ra'iisul wasaarahan sheekaysanay waxaan ku yiri ra'iisul wasaarow maxay tahay dadkan wasiiradan oo qaarkood tabartooda noocan tahay markaasuu igu yiri saaxiib annaga waxaan ka fikirnay cabdiyo survival dowlad ahaan before delivery maxaa ka wada markaan irina waana la ridayaa buur haddaan wasiiro xildhibaanada laga dhigin xildhibaanana meeshay ka imaanayaan oo wixii xitaa haddaad tabar daran tahay oo dowlad deriskaaga ay ku soo maaqto ay ku dhibaatayso awooddaas oo kaa celinaysaa jirta aniga iskuulkan ka imaanayo ma aaminsana waayo tusaale cad waxaa ku ah waxa falastiin ka dhacaya diblomaasiyaddu ma aha wax ku filan in lagu guulaysto badana marmarna waa lagu guulaystaa oo dee waxaad heshaa wax yurkaa yidhahda laakiin sida aad u sheegtay Ethiopia taas oo kale maaha wasiir cabdi aadan hoosow adnoo ku salaamad iyo qoraaladaada iyo warbixintaada iyo fekerkaaga aad soo tilmaantay waa aad baan ku bogaadinaya inaad qortay qoraallo waqti hore oo 2018 oo maanta ay joogto waa kugu mahadinaya oo aragti dheer oo dadka aragtida dheer ee nool ما مغلسة أنا واحد عرفت كو أده حن يدش يدار بريك نيوز الحاج عدكاga waxba ka qaldan ma waxaad ka hadlaysaa samaacada dhagaa kugu jira waxba codkaaga ka qaldan please علي حاجي أدير علي حاجي عدكيس وحاواي ونقلمي next udib cunaya inta soo hagaajisanayo mike soo hagaajisanayo sham cunaya ku socda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مضش النمارك وهلكن شكور برنامج مدة هنا ساحة الوزير وزير علوس runtii cabdi aadan hoosow oo qayb gala maanta ayaan u jeednaa laakiin keligiisa ma aha waa soo bixi doonaan waxaan sidaan haddaa sheegay isbuucyada soo socda bilaha soo socda waa soo bixi doonaan nin baa hadda ka hor laga sheegay gabar maama khiyaareed ma aha inta uuraysatay tiri ha ii sheegin wuxuu yiri ana ma ka sheega 5 bilood ay ka sheegnay ya aniga kuma sheegaye 5 bilood markaad gaarto caloosh banaanka soo baxdo 5 bilood ay ku sheegin waxaan waqtiga sheegi doona inuusan kaligiisa ahayn banaanka inta ceeb baana ka dhici doonta aniga sidaan aaminsana ama santeen aad u mahadsantahay saxaadada wasiir asfadho cunaya waxayna ka dhacay mar dhaweyto maxamed iyo alxaaj marka waxaan ku horeysiin doonaa maxamed may maqlaysaa maxamed oo ku maqlayaa shukr aad iyo aad waa sax walaal comment-kaagan raacso haddaad su-aal haysan raacso kadibna alxaaj banu dhiibi waqtigana aynu beekhaansan insha allah sax walaal aniga su-aashaan qabay kolley wasiirka jawaabtii hadda uu bixinayo ku maray marka qofka ku xiga si aad baad mahadsantahay aad iyo aad lana socda wasiirka waqtigiisa inuu koobay marka wuxuu ka fadhiyi waayuu kolley dareenka ku jira we can have like illa ma aragta هذا 40 minutes وأوديك إن شاء الله كل وزيرك wuxuu ka fadhiyay waayuna dareenkiisu baa soo kiciyay waa dareenka ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ama xil hayo ama yaanu xil haynina kaasoo baa soo kiciyay inuu fariinta dadkiisa gaarsiiyana
uu rabay markaa waqtigan way ka faa'iidaysanaa haddoo la dhahdo alxaaj kadibna horeynu uga sii soconnaa alxaaj ka soco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين مقل صادر سماح si wanaagsan واكسل عبدي آدم واكسل عمي يعني salaamu ullahi وانا كلام عليا قرالada هذا وقت hore aad qortay hadeer faalihooda kale waxaan rabaa anigu inaan laba kalmadood u sheego insha Allah mid waa comment midna waxa weeye waa su'aal mid waxa weeye waynu ognahay dalkeenu siduu yahay iyo dadka Soomaalidu ilaa iyo 1991 markii dawladdu burburtay eed male inaynu burburo laakiin waxa eeda inaynu garan weyno inaynu soo kabanno baa eed ah oo meesha leena ka istaan garan weyno aynu garan weyno maartay dhibaatadeen haysta way qofku markuu xanuusto uu dhakhtar tago hadduu qof iska yiraahdo waxay xanuunaysaa caloosha iyadoo la baarin dhakhtarku aqbali maayo waa inuu baaraa uu ogaada xanuunka inaga dhibta in haysa dan Soomaalinahay ilaa 1991 waynu xanuunsanaynaa laakiin waxaynu ilaa yadeer garan la'aanay meesha leena ka hayo maalin walba waxaynu garabka saarnaa cadowgeena 91 laga bilaabo waxaynu kala garan weynay cadowgeena iyo walaalkeena baynu kala garan weynay dhibaato badan bayna ku dhacdayoo kalsoonidana ka luntay intaa markaan ka baxo haddii waa sax diblomaasiyaddu ma aha wax ku filan in lagu guulaysto badana marmarna waa lagu guulaystaa oo dee waxaad heshaa wax yurkaa yidhahda laakiin sida aad u sheegtay Ethiopia taas oo kale maaha laba shay inagoo ka faa'iidaysanayna gudaha Ethiopia ma geli karnaa oo jamaadahooda ma dhex geli karnaa haddii aynu dee caqliga ma leenahay isyo inagoo awood yar inta aynu gudaha empower garayn lahayn miyaan dowladda Soomaaliya awood u lahayn inay heshiis la gasho dowlad kale oo dowladaha waaweyn oo amniga iyo ilaalinta xeebaha iyo cirka inuu awooddaa miyaynu lahayn bal su-aashaasna insha Allah labadaba isku dayadiilaya waad macsanta ha qayb yar baanan kaa maqlin hal mar ma igu celin kartaa adoo soo koobaya malaha meeshaan joogaa internetkeedu xun yahay hadda ma maqlaysaa ha hadda si wanaagsan aragteedii waa iska dhaafaya labada su-aalood yar baan gelayaa su-aasha ah haye Ethiopia gudaheeda maadaama Ethiopia aynu hadeer baranay oo Ethiopia ayna ahayn Ethiopiyadii aynu dhaqaanay kosan waxaan aqaanay ama aan jiri jiray Ethiopia la yiraahdo oo qofka Ethiopiaanki uu Ethiopia yahay cadow yahay aan la dagaalamo laakiin Ethiopiyada hadeera reeraha ah inagu ma dhex geli karnaa waa su'aal haddii dadkeeda la helo iyo dowlad awood leh heshiis ma la geli karnaa ilaalisa badeena iyo dhulkeena maadaama maanta inagu aynan awooddaa weli isku raacin oo aynan haysan aynu nahay reero meela kala degdegan oo meela kala degdegan arrintaa ma samayn karnaa waa ka baxa waa mahadsan tahay horta Ethiopia ma dhex geli karnaa labay ila tahay taas mid waa horta lama gaarin hadda marka loo fiiriyo dowladda meeshay ka bilowday xukuumadda iyo dowladda iyo hadda jirta systemka hadda shaqaynaya meeshay ka bilaabeen hadda taas waxbaa dhiman oo waxaa rajo laga qabaa siday ila tahay oo dhaqanku uu yahay in si uu miirka uu usoo noqdo oo un wixii si hoose loo dhaqo ayadoo laga dhiganayo basiska warada dagaalna lama geli karno gudaheena ay ku dhex jirtaa they are too much involved ciidan ahaan iyo siyaasad ahaan wax badan bay si xun bay noogu dhex jirtaa marka si kale un aan wax u farsamayno inay hadda tahay ay marayso ayay ila tahay horta taas waa mid aan hadda arrintaas loo geli karin tan labaadna horta ma dhex geli kartaaba that's the thing yani annaga iyo dadkan waxaad moodaa si inaan derisna annagoo ah haddana inaan aad u kala duwannahay markay noqoto nationalism waxa la yiraahdo ninka Soomaaliga ah yani waxaa arkaysaa nin dhulkaaga quudareynaya qofka qorshihiisa ka mid noqda ma wax la qaadan kara yani waxyaabo la yaab lahaad arkaysa oo weliba qof